haddaan nahay beesha reer xasan waxaan nahay dhibanayaal u dhiban wax aysan iyaga shuqul ku lahayn, wax aysan waxba ka ogeyn, wax aysan saameyn ku lahayn. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. halkan waxaan rabaa inaan kasoo jeediyo baaq ku aadan sii deynta macallimiin ehelkayga iyo qaraabadeyda ah oo lagu afduubtay magaalada Beledweyne oo si dulmiya iyo xaq darraha lagu afduubtay. anigu magacayga waxaa la yiraahdaa Khalid Maxamed Gaabane, waxaan ka mid ahay dadka ka shaqeeya arrimaha tacliinta iyo bulshada. waxaan ehel iyo qaraabo la ahay wiilashaas lagu afduubtay magaalada Beledweyne sida dulmiga iyo xaq darradana loo afduubtay, wax dembi aysan shaqo ku lahayn oo aysan waxba ka ogeyn na loo afduubtay dartiis. marka koobaad waxaan rabnaa inaan u sheego sharwadayaasha doonaya colaad iyo iska horkeen bulshada ah inaan diidnay oo aan kasoo horjeesanay in colaad aan qayb ka noqono. waxay ku tala gashan yihiin dad ehel ah, dad qaraabo ah, dad wada nool inay dhex dhigaan colaad iyo argudasho iyo kala shaki inay dhex dhigaan. laakiin waxaan rabaa inaan u sheego sharwadayaashaas waa diidnay colaad aan sal iyo raatoona lahayn oo qiimo ay ku fadhisa aysan jirin inaan qayb ka noqono ama aan jawaab ka bixino. waan diidnay, waxaana guuleysanaya insha allahu dadka khayrka wada, sharwadayaashana waa laga guuleysanaya. waxaan rabaa inaan u sheego sharwadayaasha ee dadka colaadda buunbuuninaayo oo social mediaha ka hadlaayo oo isku dayaya xitaa inay maxaan ku raadayay dhaqaale iyo xoolo xitaa ku bixiyaan in shartaas aysan joogsanin. waxaan rabnaa inaan idiin sheego annagu sharta waxaan kaga hortagnaa aqoon iyo cilmi iyo dadka in jahliga laga saaro. haddaad rajaynayseen inaan qaadno tilaabo la mid ah tilaabada ay qaadeen sharwadayaasha iyo kuwa jahliga iyo aqoon darrada ay haysaay ee arrintaas ay ku fushadeen, annagoo waxaan ka shaqayn doonaa kuwaasi juhalada ah inaan aqoon u yeelno, inaan cilmi barno, inaanan mar dambe lagu qancinin inay sharwadayaasha adeegsadaan. sidoo kale waxaan rabaa inaan bulshooyinta la wadaago sida aan ugu qanacsannahay hadalkii wanaagsanaa ee ay soo jeediyeen waaska beesha gaal jecel, siyaasiyiinta, waxgaradka iyo aqoon-yahanada guud ahaan beesha gaal jecel inaysan raalli ka ahayn, inay arrintaasi dulmi tahay, inaysan u adeegaynin ama aysan u khidmaynaynin helidda xuquuqda ka maqan dhibane ikraam doctor tahliil. waan aadan u soo dhaweyneynaa, waxaase ka rajaynaynaa inay tillaabooyin ficil ah qaadaan oo ay ka hortagaan oo ay ka shaqeeyaan sida ay macallimiintaasi xorriyaddeedu u heli lahaayeen. sidoo kale waxaan rabaa inaan xusuusiyo sharwadayaasha doonayo inay abuuraan colaad ay iyaga hal abuureen. colaaddaasi mar labaad waxaan ku celinaynaa waan diidnay, mana aqbalayno. waxaan rabaa inaan sidoo kale dardaaran yar u dhiibo wiilasha macallimiinta ah
ee xorriyaddoodii laga hor istaagay inaysan marnaba joojinin shaqadii ay bulshada u hayeen iyo la dagaalanka jahliga iyo maxaan ku rahdaye aqoon darrada. waxaan rabaa duruuf kasta idinka oo ku sugan kuwa jaahiliinta ah ee la idiin soo adeegsaday ee idinla joogo inaad aqoontooda iyo cilmigooda iyo garashadooda aad kor u qaadaan haddayba dhacdo fursad inaad u hesho inay idinsoo hor fariistaan. waxaan rabaa inaan ogeysiiyo inaan balxusuusiyo dadka soomaalida ah ee daawaday dulmigii iyo dhibaatadii iyo sharwadayaashii waxa ay ka shaqeeyeen. ninkii afduubayaasha ka mid ahaa oo iska soo duubay inuu ku faraxsan yahay dulmigaas inuu sameeyo, sida uu jaahil u yahay xitaa ma garanayo sida salaanta islaamka dadka loo salaamo. haddaad si fiican u dhegaysato wuxuu leeyahay assalaamu calaykum, oo aad isleedahay muxuu ka hadlayaa 1 shilin assalaamu calaykum, oo uusan dhihi karin xitaa salaanta islaamka ay saxdeed assalaamu calaykum. marka dadkaasi ma nihin dad la tirsanayo, ma nihin dad jawaab ka bixinayo dadka noocaasa. ee jawaabta aan ka bixinayna waxaa waaye inaan aqoon barno, inaan barno sida salaanta tahay, inaan barno sida wax loo akhriyo iyo sida wax loo qoro, si uu nala noolaado isagoo aqoon leh oo bulshadana aan dhibaato ku haynin. waxaan rabaa wax yar inaan idin xusuusiyo. waxaa laga yaabaa bulshada soomaaliyeed in badan waxay aada uga hadlaysaa oo weliba fursad ay siisay ka hadalka dhibane ikraam doctor tahliil oo ah gabar ku maqan si dulmi ah oo aan sharci ahayn, lagu waayey, waalidkeed iyo ehelkeedina ay kula yihiin dhimasho iyo nololba. waan ka xunnahay, waalidkaasna waan la murugoonaynaa. waxaana rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo inay ikraam cadaalad hesho sida aan ugu doonayno inaan anagana cadaalad helno. waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan wax yar xusuusiyo. waxaa laga yaabaa inay og yihiin oo keliya wiilashaan la afduubay ee meediyaha laga soo daayay, laakiin 2 isbuuc ka hor waxaa ka horreysay gabar qaraabada ah oo ehelka ah oo la yidhaahdo anfac sheekh xuseen in laga afduubay magaalada beledweyne, loona gacangeliyey al-shabaab, looguna sheegay inay tahay askariyad ka tirsan ciidamada hirshabeelle. waa gabar 16 jir ah, wax ay askari ka garanaysa ma jirto, wax ay ka taqaana ma jirto. kadibna waxaa waaye inta la afduubay ayaa dembigaasna loo sameeyey. waxaana eedaas iyo tuhunkaas aan qabnaa inay arrintaasi ka dambeeyeen kuwa hadda afduubtay oo sharwadayaasha ah. marka ay ku filnaan weysay inay gabadhaasi si dulmi ah ay shabaab ugu geeyaan oo lagu dilo, ayay waxay go-aansadeen inay haddana tilaabo kala qaadaan. waxaa u dhadhamay dhiigga dad aan waxba ka galabsanin. soo saar darteed bulshaweyn soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan la socodsiino sida ay reerka iyo qoyska iyo ikraam ay dulmi iyo dhibanayaal u yihiin. annaguna waxaan nahay dhibanayaal dulmi iyo waxaysan waxba galabsanin lagu haysto. laakiin waxaan mar kale ku celinaynaa colaadda sharwadayaasha waa diidnay, ma samaynayno, mana qaadi doono tillaabooyinka xunxun ee guracan ee sharwadayaasha iyo juhalada ay ka shaqeynayaan. waxaan ku qaabilaynaa aqoon, cilmi iyo garasho iyo nidaam ayaan uga adkaan doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo. waxaan kaloo rabaa inaan xusuusiyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha haddii cadaaladda iyo xaqa laga shaqayn waayo oo dadka nidaamka dowladnimada ah si cadaalada loogu shaqayn waayo inay dhacayaan
waxaas iyo wax ka daran. marka waxaan codsanayaa ehelka iyo qaraabada ikraan iyo innagaba inaad nagala shaqaysaan inaan u helno cadaalad gabadhana laga dilay oo aan tuhun ka qabno inay qayb ka ahaayeen oo ay ka dambeeyeen kuwa hidda afduubtay wiilasha saddexda ah. waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed inay fahmaan cadaaladda iyo dowladnimada waxa ay tahay ee aan ka wada shaqeyno cadaaladda. waxaan idin rajaynayaa guul. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.